cabdisalaan guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA ayaa sheegay inay jirto laba sabab oo keenay in shacabku sameeyaan kacdoon ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Cabdisalaan Guuleed ayaa aaminsan in Al-Shabaab oo 5 sano ee la soo dhaafay xadkii dhaafisay cadaadiska ay dadka ku hayso ay ugu wacan tahay arrintan. Wuxuu tusaale u soo qaatay canshuuraha iyo culayska zaa'idka ah ee kooxdaas ay noqdeen arrimo ay dadku xamili waayeen. waxaa intaas dheer lacagaha iyo xoolaha nool ee ay ka qaadaan shacabka iyo in qoysaska ay ka dalbadeen wiilashooda in si qasab ah ay uga mid noqdaan maleeshiyaadka Al-Shabaab sida uu sheegay Cabdisalaam, taas oo ay dadku ka gadoodeen. tan iyo markii uu madaxweynaha Soomaaliya la wareegay xilka wuxuu muujiyay in ay ka go'an tahay dowladiisa inay garab ku siiso shacabka sidii ay deegaanadooda ugu xoreyn lahaayeen Al-Shabaab, taas oo uu Cabdisalaan u arko arrin kale oo dhiirigelisay maleeshiyaadka qabaa'ilka. waa taas sababta geesinimo gelisay dadka isla markaana keentay inay ku kalsoonaadaan inay awood u leeyihiin la dagaalanka Al-Shabaab, ayuu yiri xildhibaan Cabdimaalig Cabdalla oo ku sugan degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan oo ka mid ah meelaha uu abaabulka dagaal ka socdo. ayaa isna ka hadlay sababta hadda keentay in ay shacabku hubka qaataan si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab, maadaama degmooyinkan ay go'doonsanaayeen muddo 13 sano ah. dadkii ayaa daalay, dadku nolol ayay rabaan, caruurtoodii ayaa la laayay, xoolahoodii ayaa la dhacay oo la la'yahay, waxaa loo qaatay sako. marka kacdoonka halkan ka dhacay waa kacdoon shacabka oo ay dowladdu hogaaminayso. wuxuu sheegay in ay rajo fiican ka qabaan kuna faraxsan yihiin garab istaaga dowladda. runtii aad ayaan ugu faraxsanahay garab istaaga dowladda, waana aaminsanahay inay wax badan soo kordhinayaan, ayuu yiri xildhibaan Cabdimaalig. waxa uu meesha ka saaray in hubka ay isticmaalayaan dadka shacabka ah uu dhibaato keeni karo xitaa haddii ay guulaystaan. dadkan hore ayay u hubaysnaayeen, cid ay khatar ku hayaan ma jirto. tanina micnaheedu ma aha in dowladdu ay hubeynayso maleeshiyaad ama beelo gaar ah. hal beel ma aha waxaa ka dagaalamaya meeshan, waa dadkii deegaanka oo ugu talagalay inay isxoreeyaan. dowladana uma maleynayo inay dhibaato ka soo gaarayso haddii ay garab istaagto, ayuu yiri. howlgalladan oo uu ku tilmaamay kuwa uu noocoodu dhif yahay ayuu Cabdisalaan sheegay in ay dadku walaac ka muujinayaan sida ay ku dhammaan karaan inta ay sii socon karaan howlgallada ay maleeshiyaadka qabaa'ilku hogaaminayaan iyo sida ay awood ugu sii yeelan karaan sii wadistooda. dadku waxay aad isu weydiinayaan haddii sidan la sameyn karay maxay muddadaas oo dhan u qaadatay, ayuu isweydiiyey.